ma rabtaa inaad kala ogaato qofka ku jecel iyo kan kaliya iska dhigdhigaayo. haday jawaabtaadu haa tahay fadlan muuqaalkan like saar subscribe saar ra'yigaagana comment inoogu soo qor aad iyo aad u mahadsan tahay. weligaa qof ma jeclaatay? jacaylku waa shay qurux badan. mar haddaad qof jeclaato qofkaasi aad ula jirto mararka qaar wax kasta waad u samayn kartaa. laakiin ka waran haddii qofkaasi aad sidaas oo dhan u jeceshahay uusan wax dareen ah ku hayin amaba uu been kula wado adiga. ma rabtaa inaad kala ogaato qofka ku jecel iyo kan kaliya iska dhigdhigaayo. ila dhamayso muuqaalkan waxaan kugu sheegi doonaa 5 calaamadood aad ku ogaan karto jacaylka beenta ah. Number 1, wuu ku kontroolaa qofkaas. lamaankaaga ma yahay qof badan ah kuu sheega qofkaad waqtigaaga la qaadan lahayd? ma yahay qof kugu amra inaad samayso wax aadan rabin? ma yahay qof aan go'aan kula qaadan adiga? haddaba xiriirka caafimaadka leh ama xiriirka fiyow adiga iyo lamaankaagaba isma xukuntaan. markaad haysato jacayl dhab ah qof xur ah ayaa tahay, halka markaad la jirto jacayl been ah aadan xur ahayn. Number 2, kuguma kalsoona qofkaas. lamaankaaga ma kaa shakiya waqtiga badankiisa? su'aalo xunxunna ma ku weydiiyaa? ma isku dayaa privacy-gaaga inuu soo faragashto? fariimaha aad dadka kale u dirto ma isku dayaa inuu la socdo? calaamad kale uu jacaylka beenta leeyahay waa maseer joogto ah oo sabab la'aan u dhaca. lamaankaaga kuma aaminsana, mana aaminsana inaad daacad u tahay. kuma ogolaan karo waqti inaad dadkaaga kale la qaadato, wuxuuna daa'in rabaa inuu la socdo meesha aad joogto iyo cid aad la joogto. Number 3, muhiimad kuma siiyo. ma tihiin adiga iyo qofkaas dad aan waqti wada qaadan? ma yahay lamaankaaga mid ilaa ay abid qaata inuu fariin yar kaaga soo jawaabo? adigoo qofkaas balan la leh badanaa ma kaaga baxaa balanta daqiiqada u dambaysa? si kastoo aad isugu daydo inaad qofkaas soo jiidato, calaamadahan haddii aad ku aragto waa inaad iska fahantaa qofkaas muhiim uma tihid. Number 4, xiiso kuma hayo qofkaas. qofkan waa qof u eg qof aan noloshaada xiisayn. waxba kuma weydiiyo waxaad adiga xiisaysana ma oga, dadaalna uma sameeyo si uu noloshaada wax badan uga ogaado. wuu ku caajisaa markaad kala hadlayso arrimaha khuseeya xiriirkiina. haddii aan labada dhinacba xiiso ka jirin xiriirkiina waxbaa ka khaldan. Number 5, si fudud ayuu kaaga hari karaa qofkaas. ugu dambeyn calaamada ugu xun ee uu jacaylka beenta yeelan karo waa markaad og tahay qofkan inuu si fudud kaaga tagi karo. isku dhaca iyo isfaham la'aanta waa wax caadi ah, xiriir kastana uu leeyahay xaaladahaas oo kale. haddii aad waxyar isku xanaaqdaan qofkaas ma kaa taga ama ma ka dareentaa sida inuu rabo in la barbariyo oo kale? xitaa haddii uu qofkaas qaladka leeyahay ma kaa aamusaa ilaad adiga ka raadinayso? hadduuba qofkaas sidaas yahay waxaa la dhihi karaa qofkaas si dhab ah kuma jecla, waayo hadduu xitaa waxyar ku xiisayn lahaa wuxuu at least isku dayi lahaa inuu wax saxo ama fursad labaad raadiyo. laakiin sorry, ma dhicin. xiriirada waajib ma ahan inay dhammaystirnaadaan si aad u faraxsanaato, laakiin waa waajib adiga iyo lamaankaaga inaad isku meel joogtaan, doontana isla wadaan. I hope waa intaas ayuu muuqaalkeenu ku saabsanaa. haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan subscribe saar, like gare muuqaalka aad iyo aad u mahadsantahay. si kasta aad kuma siin daawasho muuqaalka daawto insha Allah dhamaantii waxaan rajaynayaa farxad iyo bisbis faraaqeyreen amleer ayaa subhanahu balana muuqaalka insha Allah nabadiina. Bye bye.